Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Wacan oo wanaagsan dhammaan dadweynaha inaga daawada janalka Reexaan Channel. Kusoo dhawaada mar kale iyo muuqaal kale oo cusub. Muuqaalkeena caawa waxaynu kusoo gudbin doonaa warbixin aynu kasoo qaadanay mid kamida janalada ku hadla ama warbixintooda ku gudbiya luqadda carabiga, waana luqatu saxaafa waxa aynu adeegsanayno. Si haddaba muuqaalada carbeed ay soo gudbinayaan aynu u fahanno, waxaynu baran doonaa luqadaha ama eryada ay isticmaalaan dadka saxaafadda ku howlan. Haddaba caawa waxaynu soo qaadan doonaa mid kamida warbixinadaasi, taas oo ciwaankeedu uu yahay amaama acyuni waalidatihi wa shaqiiqihi istashhaada shaabun birasaasi lixtilaal shimaaliyi dafatun. Amaama haddii aynu macnayno waxay noqonaysaa ciwaanka warbixintu amaama acyuni waalidatihi wa shaqiiqihi, hooyadii iyo walaalkii hortooda ayaa istashhaada waxaa ku shahiiday shaabun wiil dhalinyaro ah birasaasi lixtilaal, wuxuuna u geeriyooday rasaas ay fureen gumaystuhu ama ciidamada xoogga ku haysta arlada Falastiin. Shimaalun dafatun, taa oo ahayd ama dhacdadaasi oo ka dhacday waqooyiga daanta galbeed. Adafatu lgarbiyu, waqooyiga daanta galbeed ayuuna ka dhacay dhacdadaasi uu ku shahiiday wiilkaas dhalinyarada, wuxuuna ku dhintay hooyadii iyo walaalkiisa ku aabba iyo ku hooyo ah hortooda ayuu ku shahiiday. aan sii wadnay warbixinta. aclanad wasaaratu sixatu alfalastiiniya dahru alyowm alarbicaa. aclanad waxay shaaca ka qaaday, waxay daha ka rogtay wasaaratu sixatu alfalastiiniya, wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiintahay, dahru alyowm alarbicaa, maalinka arbacada ahayd, istishhaada shaabun, in uu shahiiday wiil dhalinyaradahay. istishhaada shaabun, in uu shahiiday wiil dhalinyaraha, wuxuuna u geeriyooday ama u shahiiday birasaasi quwaati alixtilaal al-israa'iiliy, rasaas ay fureen xoogaga gumaystaha ee israa'iiliyiintahay. rasaas ay fureen xoogagaasi xoogga ku haysta arlada falastiiniyiintahay ayuu u geeriyooday. sharqul qalqiiliya, halka loo yaqaano qalqiiliya barigeeda ama deegaanka qalqiiliya barigeeda ayuu ninkaasi ku shiiday. shimaalu dafatu lgarbiy, waxayna ahayd halkaasi waqooyiga daanta galbeed. waqaalat alwasaaratu, waxay sheegtay wasaaraddu ina hay-ata shu-uuni almadaniya, in maamulka arrimaha madanigaahi ablaqadhaa in uu ku wargeliyay iyada biistishhaadi shaab, shahiidnimada wiil dhalinyaradahi, in wiil dhalinyaradahi uu shahiiday ayay soo gaarsiisay. waa maamulka ka shaqeeya arrimaha madanigaahi. caarifun, wiilkaasi dhalinyaradahi oo loo garan og yahay cabdinaasir laxluux, da-diisuna ay ahayd 20 caaman, 20 jir ahaa, wuxuuna u shahiiday ninkaasi birasaasi lixtilaal, rasaas ay fureen gumaystuhu, wuxuuna ku geeriyooday qurba qaryati jiid, meel u dhow tuulada la yiraahdo jiid. amaama mar-a waalidatihi wa shaqiiqihi, weliba wuxuu ku geeriyooday hooyadii iyo walaalkii ku aabba ku hooyo ah hortooda ayuu ninkaasi dhalinyaradahi ku shahiiday. eryada ku jira halkaasi shaqiiqun, shaqiiq ereygaasi waxaa loola jeedaa al aqu min al abbi wal ummi, walaalka kugu aabba iyo kugu hooyaa, walaalkaaga aabba iyo hooyo kula ah, kaa ayaa la yidhaahdaa shaqiiq. shaqiiq aa loo yaqaana. haddii isku aabba keliya aad tihiin waxaa la yidhaahdaa al aqu min al abbi. haddii isku hooyo keliya aad tihiinna waxaanu dhahaynaa al aqu min al ummi.
haddii isku aabbo isku hooyo aad tihiinna waa midda noo qorane waxaa ku soo koobaysaa oo aad leedahay shaqiiq. haddii gabar ay ku aabbo iyo kula hooyo tahayna shaqiiqatun ayaanu leenahay. ixtilaal ereygaasna maxaa loola jeedaa? waa istiilaa'un dowlatun calaa bilaadi dowlatin ukhraa, in dowladdii ay la wareegto ama ay saydarayso ama ay qabsato dowlad kale, ama qeyb ka mid ah xataa ay qabsato, ayna ku qabsato qahran, si qasab ah ay ku qabsato. dowlad in dowlad kale ay xoog dhulkeeda ay ku qabsato, ama qeyb ka mid ah xataa ay qabsato si xoog ah ama qasab ah, waxaa loo yaqaanaa ixtilaal. waa tahay warbixinteeni koobneedna caawa intaa ha inoo joogto. idna waad mahadsantihiin, aynu ka faa'iidaysano. haddii marba intaan oo kooban aynu ka fahanno oo aynu soo gudbinno oo aad la qabsataan oo aad fahantaan, dabcan waxaa idin fududaan doona in warbixinada iyo barnaamijyada ay tebiyaan warbaahinada ama muuqaal baahiyaha carbeed dhammaantoodba aad fahantaan badankooda, ama qeyb ka mid ah aaba fahantaanba. aada u mahadsantihiin. la socod wanaagsan janalka Reexaan Janal. indhaha ku hay. mahadsanidin dhammaantiinaba.